السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش ku xiran channelkayga Dr. Jiya kusoo dhawaada walaalahayga qaliga ah maanta waxaan ka hadlaynaa habdhiska dheefshiidka ayaa maanta ka hadlaynaa biidmillaahi kariim albaarka noqdo intaanin gudagal mawduuceena maanta fadlan hadaad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo saar haddii aad tahayna asxaabta hore noo joogtayna muuqaalka la garay una sii share garay qaar ka mid ah asxaabtaada waad ku maasan tahay haddaba cuntada aynu cunno waxtar ma yeelato ilaa ay soo marto toddobadan hab kow waxaa ka mid ah afka labo hunguriga ayaa ka mid ah saddex caloosha ayaa ka mid ah afar beerka ayaa ka mid ah shan xameetida iyo kanaca ayaa ka mid ah lix mindhicir yaraha iyo mindhicir weynaha ayaa ka mid ah toddobana waa malabad haddaba xubnaha aan soo sheegay oo idil waxay qabtaan shaqo u gaar ah mid waliba haddaba habdhiska dheefshiidku waxa uu ka bilowdaa afkuna waxa uu inaga caawiyaa in aan cunnada calaalino ama aan dhinac walba aan geyno taasoo ay ilkuhu burburiyaan ama ay kala furfuraan cunnadii isku dhegneyd afka waxa uu soo deeyaa dheecaan ama candhuuf sida dareere oo kale sida cantuf dareerto oo kale sida wax dareerayo kale ay soo deeyaan waxaa loo yaqaan dheecaankaas insumin ayaa loo yaqaanaa dareerkaas ama insuminka wuxuu kala daadiyaa cunnada sidoo kale hungurigu waa sidii tuubo oo kale wuxuuna fududeeyaa in ay cunnadii u sii daadagto hoos kadibna cuntadii waxay u sii dhaadhacaysaa ama ay geli doontaa kiishka ee loo yaqaano calooshu waxa ay leedahay muruqyo kuwaasoo kolba dhinac u wareejiya cunnada si ay iskugu qasmato calooshuba waxay leedahay dheecaano kuwaasoo aad u awood badan lehna awood kaamil ah ay ku burburin karaan cuntada ama ay ku shiidi karaan isla markaas calooshu waxay kaloo ku soo daysaa cuntada dheecaan kulul oo sida asidka oo kale ah kaasoo cuntada awood u leh in uu burburiyo sidoo kale waxay dilaysaa bakteeriyada waxay kaloo furfuraysaa wixii nafaqo ah sida borotiinka iyo wixii la mid ah intaas kadibna waxaa la sii daynayaa wixii borotiin ah waxaana la geyn doonaa mindhicir yaraha haddaba mindhicir yaraha waa dhuun dheer oo isku laalaaban waxayna ka bilaabataa qaybta hoose ee caloosha ka dhammaata waxayna ku dhammaataa meesha ay ka bilaabato mindhicir weynaha waana meesha ugu muhiimsan ee ka dhex dhacdo dheefshiidka laguna kala saaro borotiinka iyo wixii nafaqo ah iyo wixii qashin ah mindhicir weynaha waa marinka qashinka saara waxaana laga qashin saaraa saxarada waad ku maasantahay daawashada muuqaalkaadii fadlan haddii aad ka heshay sii share garay